sag dhexe dhac 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 web web hirig heestaasi erayadeeda intaas ayuu ka mid ahaa. dadku marka isla markaasiba waxay yidhaahdeen ardaydaasi sanadkaasi inay dhacdo waxaa u sabab ah Sharmaboy. sanadkaasi wixii dhacay wax la mid ah ayaa sanadkana laga yaabaa inuu dhaco, sababtoo ah hadda waxaa soo dhow imtixaanka shahaadiga ah ee qaranka ayaa soo dhow. waxaana soo baxday hees erayadeedu ay ka mid yihiin macabuustaa iga dhacday ma fahmin, waxweyn miyay arkeen ma fahmin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. asxaabta i daawanaysa dhammaantiinba waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan. haddii ay habeen idin tahayna habeen wanaagsan ayaan idin leeyahay. aad iyo aad aa umahadsantiin. haddii ay kugu horreysay markii ugu horreysay uu ku soo gaaro beejkan, fadlan muuqaalka like saar, beejkana follow saar. haddii aad sii sheergaraysana waa macjug malab sokor lagu daro. maanta waxaan rabaa wax bulshada Soomaaliyeed aanay ku baraarugsanayn inaan tooshka ugu ifiyo, gaar ahaan waalidiinta caruurtoodu sanadkan ay u fariisan doonto imtixaanka shahaadiga ah ee sanad dugsiyeedkan 2021 ilaa 2022. okay, fariinta aan dadkaasi aan u wado waxa ay tahay maxaa ka dhexeeya Sharmaboy ninka la leeyahay ama fanaanka la leeyahay iyo ardayda Soomaaliyeed, maxaa xiriir ah oo ka dhexeeya. okay, dabcan sida aad wada ogsoon tihiin sanad dugsiyeedkii 2019 ilaa 2020 inay tahay ayaan u malaynaa, laakiin ma hubo. Sharmaboy waqtigaasi waxa uu soo saaray hees dhaaftay oo dabcan ardayda Soomaaliyeed oo dhan maskaxdoodu dhinac kale u leexisay. heestaasi erayadeeda haddii aan wax yar aan ka soo qaato waxaa ka mid ahaa nalka hore damihey gudaha daar, daaqada xiran fur soo deg, maarkeedle meeshaada istaag, bajaadlaha bartiisa ku celi, xabad wado ama xeebta u soco, haa iga galay xasanow celi, iyaal ku dhac dhac dhac, sag dhexe dhac 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 web web hirig. heestaasi erayadeeda intaas ayuu ka mid ahaa. dabcan heestii arday fara badan baa maskaxdu ku qabsatay, waxa ayna ka mashquuleen inay akhriyaan casharadii iskuulka loogu soo dhigay. marka imtixaankii markii ay wada galeen waxaa la arkay tiro arday ah oo tiradoodu aad u sareyso oo dabcan imtixaankii ku dhacay baa soo baxday. okay, sanadadii sanadkaasi ka horeeyeyna tiro ardaya intaas la eg ama intaasi tiradoodu ay gaarayso ma dhici jirin, laakiin sanadkaasi dadka falanqeeya arrimaha bulshada, gaar ahaan dadka caaqilka ah, ardaydaasi dhacday waxa ay ku sababeeyeen heestaasi Sharmaboy waqtigaasi ay soo baxday oo dhac ay u badnaayeen. sababtoo ah waxaa caddayn u ahayd dadkaasi inay hadalkaasi ku dhawaaqaan. waxa ay caddayn u ahayd waxaa la arkayay arday fara badan oo gabdho ah oo bas wada saaran oo ay markaasi u daaran tahay heesta Sharmaboy isla markaasi uu soo saaray, oo dhammaantoodba ay ku heesayaan nalka hore damihey gudaha daar, daaqada xiran fur soo deg, maarkeedle meeshaada istaag, bajaadlaha bartiisa ku celi, habad wado ama heesta u soco, dhag dhag web web hirig. waa gabdho Soomaaliyeed oo arday ah, buugaagtooda ayay wataan. marka dadku marka isla markaasiba waxay yidhaahdeen ardaydaasi sanadkaasi inay dhacdo waxaa u sabab ah Sharmaboy. sanadkaasi wixii dhacay wax la mid ah ayaa sanadkana laga yaabaa inuu dhaco, sababtoo ah hadda waxaa soo dhow imtixaanka shahaadiga ah ee qaranka ayaa soo dhow. waxaana soo baxday hees erayadeedu ay ka mid yihiin macabuustaa iga dhacday ma fahmin, waxweyn miyay arkeen ma fahmin, waan maqlay murankooda ma fahmin, mase indhahayga lay waayo ma fahmin, farmaajo filada ma ka baxay ma fahmin. heesta gebi ahaanba ma fahmin ayay ku dhammaataa. marka waxaa laga cabsi qabaa arday fara badan oo Soomaaliyeed inay imtixaanka shahaadiga ah ee qaranka marka warqadda saan loo soo hordhigo inay ku qoraan ma fahmin, sababtoo ah xirta Sharmaboy ay ka mid yihiin. marka waxaana soo bixi doonta sida laga cabsi qabo, waxaana soo bixi doonta wasiirka waxbarashada ama agaasimaha waxbarashada shir jiraayad intuu qabto oo uu ku dhawaaqo markaasi imtixaanka sanadkan waxaa u fariisatay 50,000 oo arday, waxaana dhacday 30,000 oo arday, tirada baastayna waa 20,000 oo qof. markii imtixaanka la saxayay 30,000 oo dhacday warqadahooda waxaa ku qornaa ma fahmin, taasoo macnaheedu ay tahay ardaygaasi
inuu ka mid ahaa jamaahiirta Sharma Boy ayuu ka mid ahaa. saasaa soo bixi doonta haddii waalidiinta caruurtoodu aanay ku baraarujin inay wax akhriyaan. si shargaray muuqaalka si shargaray si waalidiin fara badan uu u gaaro. si shargaray muuqaalka wasaaradda waxbarashadana codkayga ha la gaarsiiyo. marka Sharma Boy runtii mar walba ardayda Soomaaliyeed markii imtixaankoodu uu u soo dhow yahay ayuu gaadaa. marka muuqaalkan halkaas ayaan kusoo gebagabeeyey. haddii aad wax ka fahantay fadlan muuqaalka like saar, page-kayga Facebook-gana follow soo dheh. aad iyo aad u mahadsantahay.